xaafadda Buundweyn ee Beledweyn waxay ka mid tahay xaafadaha sida weyn ay u saameeyeen fatahaadii ku dhuftay Beledweyn waxaana xaafadan qaybo ka mid ah ka buuxa biyo aad u fara badan oo ka haray biyihii ku laabtay webiga Shabeelle ee Beledweyne suuqa qudaarta waxa uu ka mid yahay goobaha muhiimka ah ee ku yaala xaafadani biyo aad u fara badan ayaa jiifa waxaana qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool xaafadda Buundweyn ay bilaabeen iyagoo adeegsanaya matooro in ay biyaha ka saaraan si markaasi ganacsigii iyo socodkii xaafadaasi dib ugu soo laabtaan محمد عبد الله قلاد شاتي وقدوميها حافظة بوندوين وحانو كور بحين يا دلالة ايودان اي سامين تفتهادي كويالتي waxaan joognaa saakay suuqa gobolada dhexe ee leeyahay suuqa dabageed oo qudaarta ay timaado waxa suuqii u diiday hor taagan waa biyo ku jira meeshaas xaafadda iyo maamulka gobolka iyo kan degmada iyo dawladda Hirshabeelle waxaan ka codsanay horta biyaha laga saaro suuqa maadaama waa suuq muhiim ah oo muxuu ahaa gobolada dhexe u shaqeynay oo muxuu ahaa Hiiraan iyo Jowhar iyo gobolada dhexe intaba hawshooda waday oo ahaa haddana ay muxuu biyaha soo heestaan annagana aan xaafadahan tabar u laanaay oo aan bixi karin tabartaanadu inta hadda muuqata ayay soo abaabushay afar matoor yar yar aan keenay ayagana waxba tari maayaan waxaan rabnaa marka in bulshada ama ku ganacsata ama joogta beledka biyaha soo cudur wada markay meesha ku sii daahan cudur keenaya oo xaafadihii ku jira oo suuqii lagu ganacsanayo ku jira in wax laga qabto ayaan ka codsanaynaa dadka muxuu ahaa maamuladaas aan hore u soo sheegnay muxuu ahaa annaga waxaan dadka xaafadda deganaa 4 kiiloomitir isku wareey biyaas ku jiraan annaguna tabar waa weyn maamulka gobolka iyo ka degmada iyo muxuu ahaa dawladda Hirshabeelle baan ka codsanaynaa in biyahaasna laga saaro iyo cidii naga kaalmay kartaba annaga tabartan intaasay noqotay meel kale oo si dhaqaaqna ma garanayno suuquna ma shaqeeyo haddii aan kaalmaysan lahayn ma shaqeeyo xaafadda Buundweyn waxa booqday xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan waxaana gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Hiiraan ee siyaasadda iyo maaliyadda oo kormeer ku sameeyay goobaha biyaha ay fadhiyaan waxaana uu sheegay in ka maamulahaan ay ka qayb qaadan doonaan bulshadana waxa uu ku dhiirigeliyay dadaalada ay wadaan waa suuqii qudaarta halkan aad u jeedin waa xaafadda Buundweyn dadka reer Beledweyne in badan waxay aaminsan yihiin biyihii inay ka baxeen oo ma aragtay ay biyihii ka badbaadeen oo ma aragtay Ilaahay uu ka bixi Ilaahay waa naga bixi laakiin wali dad ay haystaan oo guriyahooda ma aragtay lagu soo dhigla waxaan soo gaarnay suuxan maamulka gobolka biyahan oo kormeerkaan wuxuu yahay sideen ma aragtay aan biyahan meesha ugu saar lahayn dadka shacabku isqalqaam oo arkaysiin afartaas matoor ay meesha saareen mana awoodaan matooradan biyahan ilaa 3 kiiloomitir oo isku weer ay haystaan waa suuqii gobolada dhex ugu weynay ku fadhiyaan ma awoodaan in matooradaas lagu saaro waxay u baahan yihiin matoor waaweyn waana ka shaqeynayna san ugu caawin lahayn dawladda Ilaahay sidaas gudoomiyaha xaafadda noo sheegay waa isxilqaankooduna ku wanaagsan yihiin dadka reer Beledweyne sidii wanaag mar walba ay ugu shaqeyn jireen waxaan leeyahay wanaagiina si laabo biyahan garban idinku siinayna adinahay maamulku adinkana waxaan idinku dhiirigelinaysaa iskiga saar lahaydeen dawladda Ilaahay والله مر والبا هدينا مامل كقبل كي كدقمة ده مر والبا وحن ديار ونهاي أنا الشعب كده بعتذر لقى بسنة وأوجد فتهاد مركب بلاوني سي تلابوني كان قادني هدو بيه أي بحنا وحرفنا بيها نسيم كسار لهني مركان صارنا كده بنا عربوهن مال بدنا جون ودوم بدنا ما أرتلسوا مر لا يهي سيد بوندكواد أما بوند اللي تعمل هوريان أصميني دتك جادي لي دتك شعب كانوا أنا الغيب قاتين mar walba maamulka iyo shacabku isku duuban suuqani oo lagu iibi jiray qudaar aad u fara badan ayaa waxa uu ka mid yahay goobaha sida weyn mashquul ku ah xilliyada Beledweyne fatahaada aysan ka jirin gaar ahaan marka laga hadlayo ganacsiga Cabdishakuur Ismaan Cali SN TV Beledweyne